إذاعة وين حدانا وعن وقع عصب وورفا في الحسالة وقع عصب وورفا في الحسالة إمك وحن قد قال warbixin xasaasi khilaaf weyn ayaa ka dhaxaloosan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweyne Xasan Garguurte waxa la isku hayaa baarlamaanka ha lagu soo xulo 4.5 iyo lagu soo xulayo maamul goboleedyadu waxay doonayaan iyo beelaha Soomaaliyeed in lagu soo xulo deegaan baarlamaanka laakiin madaxweynuhu wuxuu doonayaa in lagu soo xulo golaha baarlamaanka 4.5 إلا جوجا وحياي على سعو وقع عصب وحي دايو وعيقي وقتي جاي لا سعتايو وبكذا انا واي ميسانو ولا الوقع عصب هموغاني مويدا واي ميساني ولا الوقع عصب هموغاني laba boqol oo qof oo ka tirsan beesha Mudulood ama Abgaal Ismaan ayaa maanta isugu tagay hotelka Naasa Hablo 2 ee magaalada Muqdisho. Odayaasha siyaasiyiinta culimada diinka iyo dhalinyarada beesha Abgaal Ismaan waxa ay dalbanayeen in golaha baarlamaanka lagu soo doorto deegaan oo aan lagu soo xulin 4.5. laakiin maxaa dhacay intuu shirkoodii u socday ayuu taliyaha nabad sugidda Cabdiraxmaan Tuuriire u diray ciidamo waxaana ka dul daatay ciidamadaas kuwaas oo runtii qalqal geliyay odayaasha handaday u hanjabay laakiin iyagu waxay sheegeen inay fulinayaan rabitaankooda oo aysan cidna uga gabad doonin waxa ay ujeedkoodu yahay oo ah in golaha baarlamaanka cusub lagu soo doorto deegaan odayaasha Abgaal Ismaan ee ka qayb galay shirkaas ama siyaasiyiintooda waxa ka soo dhex muuqday Cali Maxamed Geedi waxa ka soo dhex muuqday Saad Cali Jaalle Muxudiin Xasan Afrax runtii waa la badnaa waxa la dhigi karaa cidna kama maqnayn gogoshaas sidoo kale waxa lagu wadaa toddobaadkan in beesha habarkiisu timaado oo la qabto shir weyne kaas lamida oo ay ku sheegayso beeshu in ay taageersan yihiin in deegaan lagu soo xulo xildhibaanada oo 4.5 laga gudbo in deegaan lagu soo xulo baarlamaanka haddaba yaa diidan in deegaan lagu soo xulo baarlamaanka waxa diidan dad aan ku tilmaami karo geedka la yiraahdo qadi waxa laga yaabaa in aad aqoonin haddii aad sharaxo waa geed aan keligii bixin geedkaasi waxa uu mar walba ka dul baxaa geedaha dushooda ayuu ka baxaa keligii gooni uma taagnaa karo oo meel keligii kama baxo haddaba geedkaasi qadiga ah rag aan ku tilmaamay ayaa diidan in wax lagu soo xulo deegaan haddii arrintaasi aan idin saafo ama aan sii qalo in 4.5 wax lagu qaybsado waxaa doonaya raggaas aan ku tilmaamay qadi ama geedkaas qadiga ah ee geedaha ka dul baxo oo uu kamid yahay Faarax Cabdulqaadir wasiirkii hore ee cadaaladda ayaa diidan in deegaan wax lagu soo xusho maxaa yeelay waxa ku jira Faarax Cabdulqaadir damac siyaasadeed wuxuu la mid yahay geedkaas qadiga ah oo isagoo haddii wax la qaybsan tago malaha deegaan oo laga soo doorto ma haysto dad shacab oo beeshiisa ah oo soo doorto oo xildhibaan u soo doorto ama waxa uu doonayo marka wuxuu Faarax ka soo jeedaa beeshaasina markii hore beelaha hawiye ay kamid ahayd laakiin isaga u oleeyay oo yiri annaga adarisan nahay beeshaas kamid meehin oo reew Xasan waxay ahaayeen nima shiqaal ah oo hawiye ah laakiin Faarax ayaa yiri annaga ma nihin shiqaal annaga ma nihin hawiye annagu waxaan nahay asharaaf maanta markii deegaan waxa lagu soo xusho la yirina waxa ka dhacay Faarax iyo Allaha uu ku jiro waad yaabaysaa waxay la dad badan in waxaan Xasan Garguurte uu wato Xasan Garguurte mooto Faarax wato marka wax garadkii Mudulood ama Abgaal Ismaan oo shiraya oo odayaashooda culimada diinka oo siyaasiyiintooda leh tigniinka loo diray ee la leeyahay ma shiri kartaan maskax Cabdiraxmaan Tuuriire ma aha maskax Xasan Garguurte ma aha waxa weeye rag oo Faarax Cabdulqaadir kamid yahay oo geedka qadi la yiraahdo aan keligii taagnaa karin oo aan keligii meel ka bixin oo aan dad iyo deegaan haysan ayaa waxay doonayaan in ay dadkan wax ku noqdaan dadkay wax ku noqon lahaayeen haddii la soo dooran lahaana way ka bixin waxay dhacaan dadka ma nihin marka taa waxaan ku tilmaamayaa Faarax Cabdulqaadir inuu la mid yahay geedka leeyahay qadi asaga iyo rag kale oo aan aad wada ogtihiin oo taqaaniin siyaasadii ma bemba masir ya khiyama masaqir chalinba sadbursi ma ihba masalan kaful
urba markii lagu saluugana saldanada ku dirirba madaxda maamul goboleedyada sidii Puntland madaxweynaha Cabdiweli Gaas madaxweynaha Jubbaland Axmedoobe madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Sakiin kulli waxay rabaan in deegaan wax lagu soo doorto waa sababta shirka hiigsiga uu baaqday waxa la isku khilaafsan yahay arrintaas dhinaca kale haddii aan update garayo oo la kaga hadlo khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay madaxweyne Xasan Garguurte iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo loo yaqaan Shariif Sakiin waxay taasi sababtay in uu shirki isaga baxo Shariif Xasan Sheekh Aadan kadib markii la isku qabtay in garoonka diyaaradaha ee number 50 uu shaqo bilaabo Xasan Garguurte waxa uu garoonkaas u arkaa in haddii la furo uu xirmayo garoonka magaalada Muqdisho saas darteed waa diidiyay Xasan Garguurte waxa uu hubiyay maleeshiya beeleed halkaasi ama magaalada marka dagaal ka riday kuwaas oo ujeedkoodu yahay inay number 50 xiraan laakiin waa u suurtageli weysay oo maleeshiyaas waa laga adkaaday intaasi kuma adkaysan Xasan Garguurte laakiin markii dambana waxa uu diray 15 gaari oo qoryaha dhashiikaha loo yaqaan ay saaran yihiin kuwaasi oo maanta xiray garoonka diyaaradaha ee number 50 diyaarad lagu waday inay ku soo degto garoonka diyaaradaha ee number 50 waxa ay u weecatay dhinaca gaalkacyo ka degtay taas oo halis gelisay rakaabkii saaraa diyaaradaasi iyo agabkii ay waday siyaasadii ma bemba dadkaago sagaal qaday masibrarka dhaansa macan sidigta maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa intii la socotay 8 bisha waxaan ku qoray waaga cusub in al-shabaab ay qaadayaan weeraro qorshaysan oo ay bartilmaameedsanayaan isbitaalka Turkiga ee Devu Hospital Hotel Afriga Diplomat Hotel xarumaha waxbarashada ee Turkiga sida Nail Academy garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyo meelo kale taliyaha nabad sugidda telefoon ayaan ku wada hadalnay markii aan warbixinta qoray kadib wuxuu weydiiyay faahfaahin waa u sheegay laakiin nasiib darro maxaa dhacday waxa dhacay in garoonka xal laba doomeed aan sheegay ee warbixinta aan qoray lagu soo weeraray arintaas maxaa ka dhashay markii soo weerareen waxa loo bixiyay istaag sinyaal loo bixiyay laakiin waa soo taraarixeen ilaa wax isku soo aadiyeen rawayga diyaaradaha kadibna intii loo bixinaa siyaalaha ay rasaas soo bilaabanay xabado baasuukay waxa xiga hoobiyaal ay soo garaaceen 3 nin ayaa doontii ugu horreysay ka booday oo dagaalantay arrintaas arrin sahlan miya wiilka yar nabad sugidda haystay Cabdiraxmaan Tuuriyare wax ay warbaahin maxalliga qortay oo aan u sii sheegno oo leenahay war nimanku weeray damacsan yihiin dadka iyo dalka ha laga badbaadiyo haddana aan waxba laga qabanin ma taqaanin sababta mashquul balaguma aha arrimaha amniga waxa mashquul lagu yahay dhul boob siyaasad oday xirid wiil yaro jidka mar la soo xiro nabad sugidda intay xabsi geystay lacag ka qaato waxaas mashquul lagu yahay siyaasadii ma bemba ma sidaa doonta yeelba ma sinaan tadiido sanka kibir la taagba maya sida maahan siyaasadii sida maahan si kaloo ka duwan hata taymid soo doontay ilka soo tuwana hata taymid soo doontay ilka soo tuwana nabadola sugawi sinan iya garsorwi sabolnimo la tirwi alay xaal weerarkii lagu qaaday ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho wuxuu sababay maanta in diyaaradii Turkish Airways ay imaan weyso aniga hadda jeer waxaan jeclahay inaan idin soo bandhigo waxyaabo qarsoon oo xasaasiya nasiib darro waxaan kaga cudur daaranayaa mararka qaar wax badan oo aan ogahay shacabka lama wadaagi karo
warbaahintana kama sheegi karo laakiin waxaa dhici karta in hal sano iyo 6 bilood kadib aan anigoon cidna la shaqeynin ama aan wararkii iibsanin aan jaaris u helo inaan wax badan oo aan ogahay aan idinla sheer gareeyo runtii waa idinkaga cudur daarnaya arrintaas waxaa jiro sharciyo ayaa jiro oo tusaale markaa idinkaga soo qaado markaad wararkaaga ama xogahaaga aad ku jirto contract oo aad qolo ka iibsato waxa weeye xeer ayaa dhigaya ah inaadan warkaasi aad iibsanaysid aadan meel ku qori karin ama aadan u sheegi karin cid kale waan ogahay wariyaasha adduunka waxbaara ama dabagalka sameeya marka ay keenaan xogo macluumaad ah shacabkooda ayaa abaalmarin siiyo dawladooda ayaa abaalmarin siiso laakiin aniga ma rajaynayo taas xogaha iminka aan hayo waxaa kamid ah haddaad ogtihiin ninka dilay gabadhii saxaafiyadda ee Hindiya Xaaji Maxamed wuxuu ahaa ninka tirsan nabad sugidda NISA oo xarunta dhismaha NISA degan ayuu ahaa iminka waa la hayaa dawladda magaciisa ma sheegayso dadkii uma soo bandhigayso haweeney uu sheegay in qandaraas ka bixinaysay iyo nin wasiilo la Maxamed Xayir Maareeye wax tilaabo lagama qaadayo xasaanadii lagama qaadayo haddii lagu ogaaday inay mataqaana aflato qof gabadha ay ku jirtay iyo afdhuub oo dhinto sargaal nabad sugidda ahaa qorshaha ahaa waxba lagama qabanayo waxa weeye qofka dambiile waa soo qaban markii la soo qabto ninkii soo diro oo lacag haysta ayaa imaan waa ku dhiibaya hadduu ku dhiibo waa sii deynaysaa laakiin haddii asidiisa maxaa dhacay بريتنا هذا كدليا إذا عدوين حدانا وعن وقع عصب وورفا في الحسالة وقع عصب وورفا في الحسالة إذا عدوين حدانا وعن وقع عصب وورفا في الحسالة وقع عصب وورفا في الحسالة dhinaca الله haddii aan sii wado barnaamijkaygan anigu magac daray waaga cusub update oo habeen walbo sida aan jeclahay idin soo tabin doono waxa kamid ah waxyaabaha jira khilaaf xooggan oo ka dhex jira wasiirka amniga Cabdirasaaq iyo taliye Cabdiraxmaan Tuuryare kaasi oo gaaray in Cabdiraxmaan Tuuryare uu xabsiga u taxaabo la taliye dhinaca amniga ee wasiirka amniga qaranka Cabdirasaaq Maxamed Cumar ninka uu xiray Cabdiraxmaan Tuuryare oo u dhashay beesha Garre kana tagay magaalada London ayaa waxa uu ahaa nin qabiil oo dawladda Kenya muddo dheer kala shaqeynaya arrimaha amniga ninkaas waxa ma galabsan hase yeeshee wuxuu u xiran yahay oo kaliya ku xumayn inuu la taliye uu ahaa wasiirka amniga Cabdiraxmaan Tuuryare waxa uu muujinayaa awoodiisa iyo sidoo kaga dhow yahay madaxweynaha ama uu haysto kalsoonida madaxweynaha lama oga waxa uu sameey doono wasiirka amniga Cabdirasaaq Cumar haddii aad jeceshahay inaad noqoto siyaasi siyaasaddu ma dadka ay dilba siyaasi ma hantida boobba siyaasada ma qabiilka kiciba siyaasada ma gobol beesha aad degtay gooni u xiraa hadda waa maxay siyaasad fanaaniinta qaranka ayaa arrintaa ka jawaabay حلوة واكو سلام كا قاعد الليل سؤال جواب يا خيامة مساقيرة شالنبا سكرسي ما إحبا سياسة دي ما بيمبا مصير يا خيامة مساقيرة شالنبا سكرسي ما إحبا شهد الصبالك
tahayba masugana maaliyo sacabiya durbaanba masalan kafulba markii lagu saluugana saltanada ku dirirba masalan kafulba markii lagu saluugana saltanada ku dirirba dadkaago sagaal qaday masibraar ka dhaansa ma aan sidigta maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa dadkaago sagaal qaday masibraar ka dhaansa ma aan sidigta maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa masidaad doonta yeelba masinaanta diido sanka kibir la taagba masidaad doonta yeelba masinaanta diido sanka kibir la taagba ya dhalashada sinti qura ka wada yimi si kala fogeeba siyaasadii maxay tahay siyaasadii maxay tahay siyaasadii maxay tahay siyaasadii maxay tahay maya sida maahan siyaasadii sida maahan si kaloo ka duwan weeye maya sida maahan siyaasadii sida maahan si kaloo ka duwan weeye hata taimid soo doontay xilka sawtuana weeye hata taimid soo doontay xilka sawtuana weeye nabadoo la suga weeye sinaan iyo garsoor weeye sabolnimo loo diri weeye nabadoo la suga weeye sinaan iyo garsoor weeye sabolnimo loo diri weeye dhaqaalaha sarku
وي قرشة صح صامي وي سراعية وحسو صاركا سوق عرضو وي نغلا سركو وي قرشة صح صامي وي شرعية وحسو صاركا سوق عرضو وي سنقابل كثرو وي سفيح مكانو وي صومالي دميدي وي سما فاليا وي سما فاليا وي سنقابل كدرو وي سفيح وكنغو وي صومالي دميدي وي سما فاليا وي سما فاليا وي سميرية الغاد غالوي شرعي قال أكو الصعوي سيرتي جليوي حقون صاري وغالوي سميرية الغاد غالوي شرعي قال أكو الصعوي سيرتي جليوي عقون صاري وغالوي سياسة سيداوي سياسة سيداوي سياسة سيداوي سياسة سيداوي sidaad u aragtay barnaamijkeenan waaga cusub update oo aad mar kasta booqan karto ama aad kala socon karto website-keena waagacusub.com ama waagacusub.net ama waagacusub.info waagacusub.so waagacusub.nl fadlan commentigaaga ku soo dir emailka info@waagacusub.com ama ku soo qor baraha aan ku leenahay Facebook iyo Twitter